Jacaylka hooyo ma ahan wax lagu soo koobi karo dunidan, waa iftiin ku dhex beeran qalbiyadeena. Ruuxa hooyo haysta ayaa hantiyey qiimaha dunidan, maxaa yeelay wuxuu maqlayaa codkii ugu qiimaha badnaa dunida iyo aragtida la arko weji midkii mudnaa daawasho. Ruuxa hooyo aysan u nooleen ayaa la nool xasuuso aan dhammaad lahayn oo uu hayo qofkaasi hooyadiisa. Marka hooyo iyo ubadkeeda ay kala fog yihiin oo waqtiga iyo waayaha uu kala dheereeyay, hooyada waxaa ku beerma qalbiyadeeda xiise ay u qaado awlaada ka maqan. Magaca ugu badan oo ay soo hadal qaado mar walba hooyo waa ruuxa ay tabayso. Waxay ka sheekaynaysaa awlaada ka maqan, waxay faraxdaa markay aragto ubadkeedii oo soo wacaya, waxay siisaa dardaaran iyo sidoo kale hadallo wanaagsan oo ay ku dhibciso dhagaha ubadkaasi. Tusaale waxaa kuugu filan muuqaalkani, wiilkan sida muuqata muddo waxay kala maqnaayeen qoyskiisa, balse markii guriga uu soo galay waxa uu isha ku dhuftay hooyadiisa. Farxaddii ayaa ka tambadisay, xiisihii ku kaydsanaa qalbigiisa ayaa ficil isku beddelay. Balse hooyo oo ah hagaha nolosha ayaa ku dul ilmeysay wiilkeeda, inta laabta ay gelisay waxaa disqayli muddo badan ku kaydsaneed indhaheeda. Waxaa wejigii cillada ahaan jiray uu helay wehelkii uu u hamuun qabay. Jacaylka hooyada waa mid sarreeya kana qiimo badan wax waliba. Dad badan oo hooyadoodan la joogin isla markaana ay kala fog yihiin waxay ku duceystaan in Alla maalin uu horgeeyo hooyo oo caafimaad qabta isla markaana ay arkaan. Kuwa hooyo haysta maalin walbana ay arkaan waa dad nasiib badan isla markaana ay ku ildoogsanayaan hooyadooda. Allow hooyooyinkeena dhowr kuna sii dunidan caafimaad iyo cimri dheera. Kuwaysan hooyo u nooleynna Allow jannada ku sharaf. Mar waliba ku xirnow Sharmaarka Media.